Wararka ka imaanaya degmada Kaxda ee gobolkan Banaadir ayaa sheegay in maleeshiyaad hubeysan ay fiidkii hore xalay halkaasi ku toogteen dad shacab ah oo fadhiyay maqaaxi lagu caweeyo, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. Sida wararku sheegayaan, 3 qof ayaana halkaasi ku geeriyootay halka ay ku dhaawacmeen 5 qof oo kale, waxaana weerarkan geystay rag ku hubeysnaa qoriga AK-47 oo watay gaari yar oo nooca raaxada ah. Ehelada dadkan xalay la dilay qaarkood ayaana sheegay inay falkan ay ugu tuhunsan yihiin in loogu argudayay oday habeen ka hor lagu dilay degmadaasi, sidoo kalena lagu dhaawacay wiil uu dhalay iyo haweeney kale. Ciidamada ammaanka ayaana daqiiqado kadib gaaray goobta uu weerarku ka dhacay, iyagoona halkaasi ka sameeyay howlgallo baaritaan ah, inkastoo aanan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxday falkan dadka shacabka ahaa lagu laayay. Degmada Kaxda oo ka mid ah degmooyinka ugu nabdoon caasimadda ayaana toddobaadyadii u dambeeyay galaysay wajiyo cusub, iyadoo ayna soo badanayeen weerarada salka ku haya aanooyinka qabiil, mana jirto wax tallaabo ah oo ay arrintan ku baajinayaan maamulka degmada Kaxda.